tababaraha kooxda kubadda cagta Chelsea ee Mauricio Sarri ayaa rajeynaya in Eden Hazard uu saxiixi doono heshiis cusub kadib N'Golo Kante. Mauricio Sarri ayaa rajo weyn ka qaba in xidiga laacibka ah ee Hazard uu raaci doono wadadii N'Golo Kante isagoo qandaraas cusub la geli doona kooxda Chelsea. Kante ayaa qalinka ku duugay heshiis cusub oo 5 sanadood ah oo ku qaadan doono 290,000 oo pound toddobaadkii si uu soo gabagabeeyo hadalhayn ku aadanayd halka uu ku dambeyn doono mustaqbalkiisa fog. Mustaqbalka Eden Hazard ee Stamford Bridge ayaa ah mid weli shaki ku jiro kadib markii xidiga qudhiisa uu qirtay in uu ku riyoonayo u dhaqaaqitaanka kooxda Real Madrid. Chelsea ayaa diyaar ula ah in ay ugu yaboohdo isaga kontrakti cusub oo uu ku qaadanayo 300,000 oo pound toddobaadkii halka kan iminka uu kula jiro uu dhacayo sanada 2020. waxba kama ogi heshiiska cusub ee Hazard, waxba kala ma socdo xaaladda qandaraaska cusub. waxaan ku fikirayaa oo kaliya waynu samayn karnaa arrinkan, sidaa ayaan rajeynayaa. waxaa sidaasi ka dhawaajiyay macalinka kooxda Chelsea ee Mauricio Sarri. ha mogaanin fadlan inaad subscribe garayso. mahadsan.